kusoo dhawaada qaybtan waxaan ku baran doonaa wax la yiraahdo variables. Variable hore waa usoo aragnay waxyaabo ka mid ah soo aragnay, balse maanta waxaan arkaynaa si fiican ay u arkaynaa variable-ka muxuu yahay iyo qaabkee markaasi loo abuuraa iyo qaabkee loo isticmaalaa. ugu horreyn marka inta aan cashirka u guda galin fadlan haddii aan subscribe saar, like-na saar si markaas aysan kuu dhaafin videoska xiga ama casharada inoo xiga. wixii markaasi talo ahna ku qor dhanka commentiga kusoo qor. cashirka intaan kusoo laabano waxaan soo kicinay terminalkeeni ama cmdd ayaa soo kicinaysa ama PowerShell ba midba taa isticmaalaysid. waxaad qori doontaa Python. haddii markaas aad isticmaalaysid Windows fadlan qor Python kadibna waxaad leedahay enter leh. haddii aad isticmaalaysid Mac ama Linux waxaad qoraysaa Python free kadibna waxaad leedahay enter. inta markaa taaganahay waxaan arki doonaa wax la yiraahdo variables. variable-ka sidee loo define gareeyaa, sidee markaas loo abuuraa. hore waxaan usoo baranay tusaale ahaan waxaan soo sameynay waxaan dhahnay var equal dhahne wuxuu la mid yahay tiro. waxaan anaga abuurayna waxaa lagu magacaabaa kan ayaa waxaa lagu magacaabaa variable. variable-kaas markaasi waa wax ku haynaya waxay ku hay kartaa number ayay ku hay kartaa ama waxay ku hay kartaa markaasi ama waxay ku hay kartaa magac ama string waxay doonto waa ku hay kartaa. tusaale ahaan haddaan dhahno tusaale ahaan var name variable waxaan abuurnay markaasi variable waxaan abuurnay var name la yiraahdo. var name-kan waxaa dhihi karnaa wuxuu la mid yahay tiro ama waxaa dhihi karnaa markaasi string ayuu la mid yahay dhihi karnaa. wax walba waxaa abuurnay variable la yiraahdo var name. var name-kana markaasi waxaan dhahnay string. marka var name-kan wuxuu noo hayaa string ayuu noo hayaa. waxaa doonto markaas waa sii kartaa. tusaale ahaan hadda var name waxaan siinay string. haddii aan soo daabacno waxaan leenahay markaasi var name ayaan gelinaa printiga gudaheed kadibna waxaan leenahay enter. waxay noo soo bandhigay markaasi qoraalkii oo markaasi uu noo yahay. isla markaa waxaa sameyn karnaa wax la yiraahdo reassigning. variable-kan haddeertaan waxaa u dhiibnay qoraalkaas, balse mar kale waxaa sameyn karnaa magac waxaan sii karnaa wax kale ayaan sii karnaa. tusaale isla variable-ka aan soo qaadano markaan wuxuu la mid yahay leenahay 2 numberkaas ayuu la mid yahay enter dheh. haddii aan print dho maxaa soo bixi doona print markaa dhahdid waxaa soo bixi doono shay ugu dambeeya markaas adiga aa abuurtay var name. shayga ugu dambeeya aan abuurno waxaa variable-kan waxaa dhahnay wuxuu la mid yahay 2 ama 2 ayuu noo hayaa dhahnay. kii ka horreeya waxaa variable-kan oo isku magac markaas ay yihiin asigana wuxuu noo hayay qoraalkaas ayuu noo hayay. labadan Python waxay qaadanaysaa marba tii u dambeysay midda ugu dambeysay oo adiga aad samaysay ayay qaadanaysaa go-aankeeda kadib waxaa leenahay enter. saa aragta waxaa noo soo baxay number 2 ayaa noo soo baxay oo ah variable-kii ugu dambeeyay markaasi magacaan u bixin. okay sidoo kale waxaan arki doonaa variable-ka sidee loo define gareeyaa, qaabkee loo abuuraa, waxyaabahaas arki doonaa. variable-ka siyaabo badan ayaa u sameyn kartaa. variable waxaa dhihi kartaa inaad dhahdid my kadibna waxaa dhihi kartaa inti ama my variable ama wax ayaa sheegi kartaa. qaabkaas oo define gareey kartaa adigoo isticmaalaya markaasi underscore waa adeegsan kartaa. balse waxaa mamnuuc markaasi inaad adeegsatid inaad dhahdid my kadibna var. underscore waa adeegsan kartaa balse calaamadaasi oo dhexe ma adeegsan kartid. calaamadaasi heaven-ka ah ma adeegsan kartid. sidoo kaleeta variable-ka okay cilada soo saar sababtoo ah waxaa dhahnay my var variable ayaa abuuran. variable-ka waxba uma assign gareyn ama waxba qiimo uma dhiibin. cilada marka waa taa wuxuu leeyahay my var is not defined. lama define gareynin, horena looma abuurin, haddana qiimo lama siinin. okay mushkilo ma laha markaas ciladaas wax weyn maahan. sidoo kale waxaan arki doonaa hadda waxaan soo aragnay qaababka u sameyn karta variable oo ah inaad dhahdid my var inaad qaabkaas u qori kartid. sidoo kaleeta waxaa dhihi kartaa markaasi inaad dhahdid my var kadib aad isku dhajisid kadibna number aa raacis waa dhihi kartaa. sidoo kale waxaa dhihi kartaa inaad wada capital ka dhigto adiga dhan aad dhahdid my var waa dhihi kartaa adigoo markaasi siin karo underscore ama underscore la-aan inta baa sameyn kartaa. sidoo kaleeta waxaa mamnuuc ka ah in aadan sameynin inaad dhahdid tusaale ahaan my var sa hadda aan soo aragnay calaamada hyphen-ka adeegsatid waa khalad oo kaama yeelayso inaad samayso qaabkaas. sidoo kale markaasi waxaa kaloo khalad ah inaad ka bilaawdi number. tusaale number inaad ka bilaabo kadibna aad dhaho my var ama aan isku dhajiyo ama aan u dhexeysiyo underscore waxay doonto bahaato. laakiin variable-ka kama bilaabi kartid markaasi tiro kama bilaabi kartid. sidoo kale hyphen-na ma adeegsan kartid. midda saddexaadna waxay tahay kama bilaabi kartid calaamadan inaad dhahdid sign dollar-kaasi adeegsatid kadibna aad ku qortid wixii markaas adiga u baahan tahay
ama varkaas aad samaysid. intaas markaas waa qalad oo ma adeegsan kartid. saddexdan kore waa adeegsan kartaa, waa inaad adeegsataa oo keliya underscore, ama waa inaad number ku dartaa oo qaybta dhex ama qaybta dambe kaga dartaa, ama capital inaad ka wada dhigtaa. balse calaamada havenka lama ogolo, inaad tiro ka bilowdan lama ogolo, inaad calaamad ka bilowdo tusaalahaan sida sign dollarkana iyadana lama ogolo. intaa ma samayn kartid. okay, markii aad taaganahay haddii aan iska tiro screenka waxaa leeyahay control L ayaa leeyahay. waxaan soo aragnay variable, ayaan soo aragnay qaabka loo define gareeyo iyo waxyaabaha markaasi ka mamnuuca ah. variableka qaabka loo define gareeyo laba wada ayaa jirto. midna waxaa la yidhahdaa markaasi camel case ayaa la yidhahdaa. camel caseka isagana waa wax oo macquul ah la isticmaali karo oo saxan, waa wada saxan, dadka qaar way isticmaalaan, dadka qaarna markaasi waxay jecel yihiin underscore inay adeegsadaan. tusaale ahaan waxaa dhahay variable ay abuura, variableka abuura waxaa dhahay my int. saa aragtaan waxaan adeegsaday wax la yidhahdo underscore my kadibna underscore dhahay int ayaan dhahay. waa samay kartaa. dadka qaar waxay jecel yihiin waxay sameeyaan wax la yidhahdo camel case. camel case waxaa la xaraf walba xarafka ugu horeeyo ana ereyga ugu horeeyo mar walba waa small, laakiin ereyga markaasi ku xiga wuxuu noqonayaa capital. tusaale ahaan waxaa dhahay my maadaama ay bilowga tahay small ayaa ka bilaabay, inti waan ku dhejina waxaa leeyahay ayda capital ayaa ka dhigaa. saa aragtaanba khaasan marka waxaa lagu magacaabaa camel case kaas la yidhahdaa. qaabkaasi waa dhigi kartaa. haddii markaas variableka aad u weyn waxaa dhigi kartaa my var name. saa aragtaanba erey walba aan qoray waxaa ka bilaabaya markaasi capital ayaa ka bilaabaya, ama xarafka koowaad waxaa ka dhigaya capital ayaa ka dhigaya. qaabkan waa adeegsan kartaa. sidoo kale waxaa adeegsan kartaa underscorena waa samayn kartaa. labadaba waa wado saxan markaasi oo la adeegsan karo. sidoo kaleeta waxaa arkaynaa laba shay wax la yidhaahdo global variable iyo waxaa arki doonaa wax la yidhaahdo local variable. labadaas maxay ku kala duwan yihiin? labadaas waxay ku kala duwan yihiin oo keliya qaabka markaasi adiga u isticmaalaysa ama qaabka markaasi adiga u soo bandhigaysa. okay, haddii aan ka bilaabo global waa variable si caadi adiga asaga awood. tusaale ahaan scope-kaaga ama function haddii aad samaysid function waa isla arki doonaa qaabka loo isticmaalo cashiro dambe, balse maanta waxaa u arki doonaa si hordhac ahaan ayuu arkaynaa anagoo markaasi ujeedada aan ka leenahay oo keliya ah sida ku arki lahayn wax la yidhaahdo local variables iyo global variable labadaas. okay, localka haddii aan ku hormaro waxaan abuurayaa function ayaa abuuraya. waxaa leeyahay define ayaa leeyahay ama functionka ayaa abuuraa. functionkaas waxaa bixinaa waxaa leeyahay my function. function mar walba waxaa lagu yaqaan saa kusoo sheegnayba waxaa u dambeeya parentheses ayuu leeyahay. tusaalahan hore waxaa usoo baranay print ayaa soo baranay. print waxaa u dambeeyay calaamadaas ayaa u dambeeyey. waxaa soo baranay length waxaa u dambeeyay calaamadaas ayaa u dambeeyey. slice wuxuu leeyahay calaamadaas. kuwaas dhan sa aragtaanba waa functions waay. balse functionada qaarna waa wax bini aadamka asiga uu gacantiisa uu ku sameynayo, macnaha programka aan ku dhisnayn uu qofku uu tusaalahaan kan aniga ayaa sameey my fun wax adiga sameey kartid, laakiin printy python ayaa sameysay oo hore ayay u jirtay. okay, taa marka ayaan kusii mashquulin. functionka asiga faahfaahsan waa arki doonaa. kaliya waxaa arki doonaa si global iyo localkaas si ku kala duwan yihiin. waxaan sameeyey markaasi define dhahni my function ayaa abuurnay. functionka mar walba calaamadaas la adeegsadaa meesha ugu dambeyso. qaar luqadaha qaarna waxay adeegsadaa calaamadaas ay adeegsadaan, balse python waxaa adeegsanaya double colonkaas ay adeegsanaynaa. kadibna waxaa leenahay enter ayaa leedahay. dashtan waxay ku cadaynaysaa markaasi qoraalkaaga inaad sii wada karto. sidoo kaleeta qoraalka inta kama bilaabi karto, sababtoo haddaa inta ka bilaabo hadhow ciladaas soo baxayo waxay ugu qabsan doonaa qoraalkan labadan islama simnaa karaan. maadaama function yahay kan uu hoos imaanayo waa inaad kasi kartaa, waa inaad hal tab dhahdaa aad gudaha geysaa. laakiin luqadaha qaarkoodna waa iska ogolaanayaan, waa caadi. okay, intaa markaas sameyno waxaa abuuranaa variable. waxaa leenahay my local variableka ay abuuranaa. variablekan waxaa leenahay markaasi ama number ayuu noo hayaa. si markaasi aan usoo bandhigno waxaa leenahay print. waxaan soo bandhigayaa haddii ana ka waran my local haddaa soo bandhig maxaa dhici doona? enter dheh. waa variable local ah ayaa waxaa kusoo print gareynayaa meel wax ka baxsan functionkaas. enter dheh. saa aragtaa wuxuu leeyahay my local ama variableka my local la yidhaahdo is not defined, lama samey. sababtoo ah variableka xaguu ka shaqeynaya? variablekan wuxuu ka shaqeynaya oo keliya inside of the function. functionkan gudihiisa oo keliya ayuu ka shaqeynaya. functionkaas wixii ka baxsan kama shaqeynayo. okay, si markaas usoo bandhigtid variablekaas waxaa dhigi kartaa waxaa soo qaadan kartaa functionkaagii. functionka ayaa le okay, function waxaan ku daray c ayaa ku daray dheeraad
haddii aan ku noqdo seed aan ka tiro enter dheh qaabkaas ayaa u adeegsan kartaa si nadiif ah tusaale ahaan waxaa leeyahay waxaan abuuraa variable kaleeta waxaa leeyahay x markaasi ama var x var global okay gl asaga soo gaan wuxuu la mid yahay asigna leenahay 8 ayuu la mid yahay kan waxaad dhigi kartaa print meel allaale meesha markaas adiga aad taagan tahay waa kaga soo daabici kartaa saarigtaanba waa soo daabici karaa balse functionkan gudihiisa wax ku jiro markaasi ama variable ku dhex jiro banaankaas kama daabici kartid marka kan waxaa lagu magacaabaa local variable waa variable-ka laga dhex abuurayo functionka gudihiisa kaliya wuxuu ka shaqeynaya functionka gudihiisa ayuu ka shaqeynaya balse kama shaqeynaya functionka wax ka baxsan banaankiisa kama shaqeynaya sida marka global variable-ka asigana waxaa u isticmaali kartaa inside of the function ama outside labadaba u isticmaali kartaa wax cilada markaasi kugu masuulinaya qaybteen variables inta ay ku joojinaynaa fadlan subscribe sar haddii aad markaas subscribe saarin si uusan ku dhaafin videos ka xiga